الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي صدح إيو أفرتنات إيو دردارك بشهر رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. لا تكونوا كالتي نقضت غزلها يينا نقن أحبتي في الله يينا نقن سيدي قفكي حرقي وحري فرفراي ودب فرفراي هدي أنا هندت كفايدة بشهر رمضان haddii aan ahayn dad ay ku xaqiiqowday sifaatulmuttaqiin ilaahay kuwa ka baqa waa inaan ilaahay ku xamdino oon ku shukrino oon weydiisano thabaat calaa daalik inuu ilaahay nagu sugo xata almamaad ilaa aan ka dhimanno inuu ilaahay nagu sugo wa iyaakum huma iyaakum waa inaan ka digtoonaanoon iska ilaalino min naqdi alghasli bacda ghasli xadhigga inta la xidhay kadib inaan dib u furno xadhiggee la xidhay furitaankiisa inaan furfurno ayaynu iska ilaalin. yacni qof xadhigguu maanta dhan uu soo hayay haddana intaad subaxii xadhig inaad soohdo oo tidicdo aada bilowdo gabaldhici haddana aad dib unu furfuri ka war. marka wixii aan soo hagaajinay bisha ramadaan yaynaa dib u halaynin. waxaa laynooga digayaa alrujuuc iyaakum walrujuuc ila almacaasi walfisqi walmajuun. waxaa laynooga digay inaynu u noqono macsiyadii iyo fisqigii iyo xumaantii daacada inaan ka tagno ayaa laysaga digay. acmaashii wanaagsaneyd aan baranay inaan ka tagno bacda ramadaan ma aan ka fa bi'sa alqowm. dad waxaa ugu xun dadka laa yacrifuuna allaha ilaa fii ramadaan. dad oo bisha ramadaanun ilaahay yaqaana. bisha ramadaan waxyaabaha cajabta badan waxaan soo xusuustaa mar walba markaan arrimahan arko baan masaajidka waxaan soo xusuustaa wiilal baan aqaanaa 11 sano ayaan hadda masaajidka inaan dhex joogo ee ku yaala Seattle Washington baan joogaa. ilaa xamdigii maalintii la furay baan imid 11 sano waxaan aqaanaa wiilal sanadkan baana arkin. leelaha labadii sano ee horena dee waxaa jiray cudurkii corona ahaa oo masaajidka laguma tukanin, taraawiix ma jirin. intii ka horreysay oo taqriiban 9 sano ah waxaa jira wiilal aan arko ramadaanka keli ay yimaadaan. safka hore weliba iyay xidhaan, habeenku ramadaanku dhammaada igu dambaysa. marka waxaan soo xustaa mar walba qisadan, yacni ha noqonin qof uun ramadaan caabud oo la arka ha noqonin. waa fiican tahay haddaaba timaado, laakiin waxaa halkaa ka muuqda inuu qofkaasi bishaasoo keli ah walacalla ilaahay inuu waafajiyaa suuragal leeyatul qadriga oo ilaahay dembigooda u dhaafo. rabbi subxaana wataala hayna wada waafajiya dunuubteedna haynoo dhaafo dembigoodana leenahay. axibatii fillaah, in xadhig ballankii la xidhay la buriyo wuxuu leeyahay arrimo lagu gartaa jira. ogow, xadhiggaad soo xidhay qof walbo inaad dib u buriso waxyaabo lagu gartaa jira. kow, waxaa ka mid a inaad aragto dadkii salaada ku dadaali jira oo salaadii la dayacayo oo laga tegaayo. hadday raggii noqon lahayd jamaacadii inay ka qayb galaan iyo hadday noqon lahayd in la ilaaliyaba laga tegaayo. waa mithaal iyo muuqaal lagu garto wey inaad xadhiggii dib u furfurayso. waxaa ka mid a inuu qofku ku laabto aqaanidii, heesihii iyo aflaamtii iyo qaawanaantii iyo wixii iyo malaahidii meelihii xumxumaa uu tegi jiray. haddaad aragto tusaale gabdhahan ka soo qaado inay gabadhii xijaabato oo dhar bay qabtaa ramadaanka. waxaan habeen dhoweyd ku baraarugaya gabar waxaan arkayay idaacadaha soomaalida mid ka mid a bay ka soo jeedisaa warka. marka intaas laabteeda iyo luqunteeda oo dhan way qaawanaan jirtay. ramadaan dar habeen hore miyay ahayd baa waxaan arkay iyada oo si fiican dhag isaga soo dhigto oo soo xidhatay dhar fiican oo qarisay. marka waxaan yaa rayta hadday ku socoto watamanaytu inaan taleefankeeda helo oo aan idhaahdo ha furin. ilaahay subxaanahu watacaala haddaad u xijaabatay ramadaan hadduu dhammaado ha furin arrinka insha allahu tacaala. waana ku dadaalayaa inaan helo insha allahu tacala xidhiirka la sameeyo. atanaafus fi dhihaab waxaa kamid oo kale inaad aragto tartan iyagoo dadku ugu jiraan meelaha masraxyada iyo meelaha tumashada iyo habeenkii shayaadiintu meelaha ay joogaan inay dadkii ay u wada aadayaan ood aragto bacda ramadaan halkaa laasoo carari. waa sidaan sheegaynay oo qaar baaba bisha ramadaan kusoo dhoweynba heesi iyo xafladihii waxaa lagu leeyahay ciidda, xafladihii ciidda. bilaahi calaykum bal u fiirsada dadkeena dhibaatadayna haysa xafladii ciidda. markaasa waxaa la keenaya hobollo iyo kuwa heesa ayaa la keenayaa. waa nicmadii ilaahay oo lagu kufrinayo
وعلامة كتوسينة سبا ليدا علامة وحوية كتوسينة إن لا أقبلين عمل كاجي أما أيت الجحود للنعمة إلهي قفتي دن إناتا أو كل شكرين. أما علامات كعدم قبول العمل والعياذ بالله أي كمتها الرمان. ومن علامات قبول العمل عمل كاجي إن لا أقبلي وحيابها تصي وحا كمده inaad aragto qofkii oo xaaladii uu ku sugnaa xaalad ka sii fiican ku jira korbaad u sii socotaa waxaad arkaysaa iqbaal cala taacati qofkii oo soo aaday waxaad arkaysaa qofka waid taadana rabbukum lain shakartum laasiidanakum ilaahay subxaanahu watacaala qofkii ku shukriya wuu sii ziyaadinayaa ziyaada fi liimaan walcamali saalix qofkii bishii ramadaan buu soo hagaagay waxaad ujeedaa maa sha allah qofkii ooba safka hore un ku jira ziyaada fi lkhayr wataaca ayuu ku sugan macsiyadii buu ka jeedsaday waxyaabaha waxaa la yidhaahdaa xasan baa wuxuu yihi maa naclamu camalan garan mayno camal oo habeenkii in la tukado ka adag ma jiro ama xoolo la bixiyo marka waxaa la yidhi maxay yihiin dadka habeenkii tukadaa wejigooda wuu nuuraay maxay yihiin markaasaa wuxuu yihi liannahum khallow biraxma ilaahay bay gooni la noqdeenoo faalbasahum nuuran min nuuri ilaahay marka nuurkiisii buu qeyb ka siiyey sidaasaad u arkaysa dadka wejigooda oo iska nuuraya mar walba ilaahay subxaanahu watacaala daacad haynoo fudaydiyo wajazaakum allah khayr baaraka